تفسير كينا ماذا سورة القدر وسورة كومن 5 آيات سورة waxay ka hadlaysaa hal habeen oo qiimo badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu deeqay ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam habeenkaas oo fadli weyn leh habeenkaas oo ah habeenka Laylatul Qadriga habeenkaas oo soo degay Quraanka Kariimka ee sharafta badan haddaba aynu guda galno tafsiirka Bismillahir Rahmanir Rahim waxaan ku bilaabayaa magaca Allah ee naxariista guud iyo midda gaar ah naxariista inna anzalnahu fi laylatil qadr Allah waxa uu yiri anagu quraanka baan soo dejinay habeenkii sharafta wama adraka ma laylatul qadr maxaa ku ogeysiiyay laylatul qadri maxay tahay laylatul qadri khayrun min alf shahr habeenkaas waa mid ka khayr badan kun bilood تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر waxaa soo degaysa malaa'igta iyo malku jibriil habeenka dhaxdiisa rabbigood idamkiisa ayay ku soo degayaan arin walbana way la soo degaan taas oo macnaheedu ay tahay arin walba oo baraka iyo khayr la ayay keenaan oo ay la soo degaan سلام هي حتى مطلع الفجر nabadgelyo weeye habeenkaasi ilaa intuu waagu baryayo walaalahayga muslimkaayow waa walaalkiin maxamed wardi cali oo idileh sii shargaraya suuradan walaaladiina muslimiinta gaarsiiya idinkana ajar ayay idii tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu